السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا قصة عجيبة صاروا وعنق ير كجر سنة كيسي أفراد وحكونا ولا تولا ير وكتا الله هندية وحكسو جيدا قويس فقير سيوهلا المعيشة ولا الكيس جود وحوش غين جريدت كراعة تريندا أساقو وقادو بورسوينك يو ألابتا أيوتان هو يدي سوحي قبن جرت شنقوين كالدوان سي أوهش وحي عنان noloshoodu ma ahayn mid sahlan maalin maalmaha ka mid hooyadu waxay ku qasbanaatay inay shaqayso habeen joodo ayaana qaaday mas'uuliyadda walaalkiisa saaro waxayna ahayd inuu saaro seexdo si joodo uu aado shaqada laakiin saaro aad ayuu u cabsaday hurdana way ka imaan weysay wuxuuna ka baryay walaalkiisa inuu u raaco shaqada joodo waa uu ka yeelay wuuna waday wuxuuna fadhiisiyay meel wuxuuna ku yiri ha ka kicin meeshan inta aan shaqada ku jiro laakiin saaro uu ka istaagay meeshii wuxuuna galay mid ka mid ah tareenada deel dartiis saaro wuxuu seexday sagxadda tareenka mana uusan soo kicin ilaa tareenka uu dhaqaaqay cunugan yar wuxuu arkay tuulooyin iyo beero cajiib uusan weligiis arkin laba maalin ma uusan istaagin tareenka ilaa uu gaaray magaalada Kaleegta waa magaalo dad badan kana duwan tuuladii buqlaanta ahayd oo ka yimid cunuga saaro wuxuu dareemay cabsi magaaladu way dad badan tahay qof walba wadadiisa ayuu haystaa ma jirto cid muhiimad gooni siinayso asaga subaxii wuxuu dhaqaaqayay asagoo hadaf lahayn habeenkiina wuxuu seexanayay meesha uu gabalku ugu dhaco sidaas ayuuna ku jiray dhowr maalmood kadib ayuu helay ciyaal darbijiif ayaga ayuuna la saaxiibay maalin ayaa waxa u yimid nin waana uu waday ayaga dhan laakiin saaro iyo dhowr kale waxa uu soo gashay inay ka ordaan markii dambe kulligood ayaa ka soo baxsaday ninkii saaro wuxuu wareegayay wadooyinka dhowr maalin ilaa markii dambe uu gaajo iyo oon dartood uu la socon waayay wuxuuna hor fadhiistay maqaayad miskiinkan wuxuu arkay wiil dhalinyar oo wax cunayo asagana wuxuu dhaqdhaqaajiyay gacantiisa iyo afkiisa sidii inuu cunto cunayo waxaa arkay wiilkii uuna u yimid wuxuu weydiiyey xaaladiisa iyo waxa meeshan keenay saaro ma uusan siinin wax jawaab deetana wiilkii ayaa u kaxeeyay daarta agoomaha lagu haayo mustaxiil ayay ahayd inuu saaro garto meesha uu ku noolaa dhowr iskuday ay sameeyeen kuwii hayay si ay u gartaan meesha uu ka yimid waxay ku dhammaadeen fashil waxaana loo diiwaangeliyey inuu yahay agoon laakiin qadarta ayaa u keedinaysay nolol ka duwan midda uu ku jiro waxaa sawirkiisa arkay lamaane ka soo jeeda Australia waxayna ka dhigteen wiil waxay u kaxaysteen wadankooda waxay geeyeen guri weyn oo qurux badan wuxuu galay nolol cajiib waxaa la geeyay iskuul wuxuuna yeeshay saaxiibo cusub qoyskiisu waxay ku noolaayeen nolol fiican sidaas darteeda wuxuu helay wax kasta uu u baahnaa markii uu weynaaday ayuu galay jaamacad wuxuuna iibsaday baabuur waqtigan dhan uu marayo maskaxdiisa marna kama aysan bixin tuuladii yareed uu ku noolaa hooyadiis iyo walaalkiisa joodo wuxuu qolkiisa ku dhajiyay khariidada Hindiya mar walba uu fiirin jiray wuxuuna isweydiin jiray meesha ay ku taalo tuuladii uu ku noolaa iyo xaalka hooyadiis ma ay xasuusata oo ma ay garan kartaa haddii ay aragto maadaama uu noqday wiil weyn waqti badan ayaa maray laakiin rajadiis inuu la kulmo ehelkiisa weli ma aysan dhammaanin waqti badan ayuu geliyey Google Earth 10 saac ayay ku qaadan jirtay marmarna maalinkii oo dhan muddo dhan sanad si uu helo meel uu aqoonsado isaga Google Earth ka baarayo tuuladiisii tareenada badneed maadaama ay Hindiya leedahay meelo kale oo ay tareenadu ku badan yihiin ayuu ugu dambeyn arkay meel uu in yar gartay wuxuu arkay meesha tareenka iyo masnicii ay hooyadiis ka shaqayn jirtay wuxuuna ogaaday in tuulada magaceedu yahay Jinish Talay ma uusan ka labalabeen wuxuu diyaarsaday alaabtiisa waana uu baxay xogaha yar ayuu shakiyay ahalkiisa weli miyay degan yihiin meeshii mise way ka guureen asagoo taagan xogaha in qalqalsan ayaa waxa u timid islaam waayeel waa ay fiirisay kadibna xabadka ayay gelisay waa uu yaabay markii hore laakiin waxa uu cadaatay in maamadu tahay hooyadiis waxay garatay markay aragtay maxaa yeelay qalbigeeda kama uusan gooyin halkaas ay dib ugu kulmeen qoyskii 25 sano kadib laakiin arrinta naxdinta leh ayaa in walaalkiisa markii uu waayay uu ka raadiyay tareen walbo asagoo iska dab wareegayana uu hoos galay tareen halkaasna uu ku dhintay saaro wuxuu murgay in badan laakiin wuxuu yiri waa inaa u qabtaa hooyaday wax badan oo bedelka muddadii aan kala maqneen dad badan ayaa saaro ku yiri suurtagal ma ahan inaad dib ula midowdo hooyada laakiin wuxuu sugay saaro in insaanku uu awoodo wax walba uu bini'aadan samayn karo saaro wuxuu u laabtay Australia
wuxuu maamule ka yahay shaqo asaga uu leeyahay bil walbana wuxuu u soo diraa hooyadiis lacag badan si ay u nasato isagana dayso shaqada. sanadkii dhowr mar ayuu soo booqan jiray hooyadiis isagoo ay la socdaan qoyska ka wiiligtay geeyeyna Australia. hooyadiis waxay raadisay in badan laakiin kuma aysan guulaysan. aakhirkiina Saaro ayaa u yimid isagoo raadinayo 25 sano ka bacdi. qisadan waxaa laga sameeyey filan maxaa yeelay nolosha cunug yar sida Saaro oo wajahay xaalado adag waa nolol mudan ixtiraam. fadlan haddii idin cajab gelisay qisadan like saara nagu soo biiro oo subscribe dhaha Bishaar Action aad ayaad u mahadsantihiin.